بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدين سلامي ولا عليك الصومالية مالو البقى عالم كجوكتان إن سلام كدب الحمد لله الله بقى ما هذا لنا وسجناتي إن أنت كدب إن شاء الله وحنكون بلسنين إن أنسمينا قيبتي لبعض أو محاضرة دينا أو هيد ولا شيء ده مسلمة ده هي سيدا ودوران كرتا لما نهاجم مستقبلك. walaal adeegana jawaabtaas waxa inooga jawaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiis uu warinay Abu Hurayra baa wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam idha khataba ilaykum man tardawna diinuhu wa khuluquhu fazawwijuhu hadu idin yimaado idin weydiisto yani guur wiil muslim ah oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisaba aad raali ka tihiin oo idin weydiisto wiilka ha loo guuriyo wiilkaas ha loo guuriyo haddii aan loo guurin wiilkaas oo wiilka guurka loo diido diinta leh akhlaaqda leh dhaqanka wanaagsan loo diido guurka dhulka waxaa ka dhacaya fasahaad iyo xumaan baa dhulka ka dhacaysa waana waxa maanta in haysta qayb ka mid ah marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay lamaanaha wanaagsan oo ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala xaqaaga uga baqaya oo adiga xaqaaga iska ilaalinaya adiga ku ixtiraamaya adiga muxuu kula tashanaya inuu yahay lamaanaha diinta leh haddii rag iyo dumar uu yahay labadaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay inuu yahay lamaanaha diinta leh sheekh leerada Hasan al-Basri ayaa waxa u yimid nin مركز حقوقي قال للحسن البصري رحمه الله قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها انتو يمد بحقوقي الشيخ حسن البصري يو قبط ليدا وحائي وديستي ويل البدن باقي وديستي ايان اقوريا يعني وحو رادينيا ويلك اقواناكسن وقبط ليسا قدر لها بقو رادينيا مركز حقوقي الشيخ حسن وايه تلمام ويلك ان قبط ليدا قدر لها شيخ مركو وحو جوابي وحو يري وممن يتقي مدك الله كعبسانيا فإن أحبها هدو جعلادنا أكرمها وكرامينيا مدك الله كعبسانيا كأقوري بيري هدو قبض هذا جعلادو أو قبض هذا كهلو أو قبض هذا أي نقضو يعني دو خرادين أي نقطو وكرامينيا وإن أبغضها هدو عراضه أو رقماتك قيبت رقماتك قاركد أو عراضنا لم يظلمها مظلمنا يوم شيخ مركي لو يمد أو نمكن يكون يري قبلها يجا أما قبل إذا وحي وديستي ويل البدن أقبل ويل كان أقورين لها يتلمام شيخ وحقوق تلمام ويل كاس wuxuu ku tilmaamay hal sifo oo alla ka cabsiya wuxuu yiri waa wiilka alla ka cabsanaya hadduu jeclaado gabadha oo ay qanciso oo diinteeda iyo dhaqankeeda qancisana wuu karaameynaya hadduu u caroodo oo xoogaa ka heli waayana isagoon dulmin buu ku keenaya marka ninka noocaasa u guuri marka gabareey haddaad doonayso nin wanaagsan akhlaaq leh dhaqan wanaagsan ku ixtiraama ku respect gareeya waxa la yiraahdaa kula tashada ku caawiya mar walba hiili oo kula garab taagnaada doonayso ninka diinta leh ku dhig hana sii deynin ninka diinta leh wuxuu ragga kale kaga fiican yahay waxay tahay Allah rabbi subhanahu wa ta'ala ka cabsanaya markuu rabo inuu ku dulmiyo wuxuu xusuusanaya Allah rabbi subhanahu wa ta'ala iyo weynaantiisu xusuusanaya qalbigiisu ku soo dhacaysa markaas wuxuu diidaya inuu ku dulmiyo markuu rabo inuu wax kala sameeyo Allah buu xusuusanaya markaas wixii dib uga istaagaya waxaad ogaataa walaal hadaa doonayso ninku anfacaya ninkaad doonayso ninka aad muxuu mar walba ku haminayso waa ninka Allah ka cabsanaya qof walba Allah ka cabsanaya ninkaas baa lamaanaha noqonaya
waxaa laga yaabaa adiguna inaad is weydiiso sidee ku kala garayna ninka Allah ka cabsanaya kan ka cabsanayn Allah rabbi subhanahu wa ta'ala gacmaha kor u taago Allah weydiiso ilaahay waxaa tiraahdaa ilaahay midka ka cabsanaya midka ka amar qaadanaya midka ku adeecsan midka aan muxuu mar walba xumaan sameeyeen ilaahay ka igu soo aadide ilaahu ka san u baahanahay ka igu soo aadide ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala waa ka aqbalaya ducadaadan ilaahay waa aqbalaya ducadaadan ilaahay cidla uga tagi maayo ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala hadaad si run oo barido qalbi runa iyo maskax joogta aad ilaahay ku barido wallahi ilaahay ducada uu ka aqbalaya ilaahayna wuxuu kugu soo aadinaya kaad rabtay mid ka si fiican waliba ilaahay kugu soo aadinaya marka gabdhow balanka aad ilaahay kula balamansan waxa waaye inaad raadsataan lamaane diin leh Allah rabbi subhanahu wa ta'ala ana ku xiran Allahna ka cabsanaya adigana Allah dartii diinta kugu toosin insha Allah intaasan ku soo koobi lahaa wixii aan khalday naftayda sheedaan bay ka ahaadeen wixii aan saxayna Allah rabbi subhanahu wa ta'ala ku mahadsan wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh